عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا ولسو 1 عشركي كوباد بارت 5 قيبتي شنات waxay ku saabsantahay marka waxa la yiraahdo Q&A waxa laga soo gabay questions waa su'aalo and A waxa laga soo gabay answers jawaab marka haddana maashan Q&A waxa laga wadaa maxay waa questions su'aalo and answers iyo maxay iyo jawaab marka waan soo gaabnay questions su'aalo and answers iyo jawaab marka lesson 1 part 5 waa qaybta shanaad waana buuggan real life English waxaan ka hadlaynaa waxa weeye Q&A marka la soo insha Allah. Su'aasha ugu horeysa waxa weeye waxay tiri Teresa hadlaysa waxay leedahay why did I buy maxaan u soo iibsaday a new outfit dhar cusub marka why sababteeba did I buy aan u soo iibsaday marka a new outfit dhar cusub marka dharkan outfitkan dharkan qaaska maxaan u soo iibsaday waxay leedahay marka Sylvia waxay leedahay because maxaa yeelay you have a new job waxaad heshay marka shaqo cusub marka because maxaa yeelay you have a new job waxaad heshay shaqo cusub marka kabacdi waxay tiri Teresa what is my new job waa maxay shaqada cusub Sylvia waxay leedahay you are ama you're waxaad tahay the new director of human resource for the Baker Resort Hotel marka waxaa tahay agaasimaha cusub ee shaqaalaha ee hotelka Baker Resort marka waxay tiri marka what is a dress code waa maxay dress code salahan sida caadiga ah waxa jirta markaan joogno shaqada waxa la yiraahdaa code of conduct oo loo yaqaano xeer hoosaad qofku waxa la sameeyaa shuruuc qofku xilligu imaanayo wuxuu kalimaadku isticmaalayo dharku xiranayo marka tan waxa weeye waa dress code waa dharka sharciga dharka weeytan laakiin code of conduct waa maxay code of conduct wax kale ma aha waa marka xitaa aad tagtaan xitaa seminaarada waxa la dejiyaa waxa sharci marka oo kaaban oo ah qofkii soo raaga qofkii qalad sameeya waxyaabo marka sharciga laga sameeyo marka xeer hoosaad baa loo yaqaanaa waa code of conduct laakiin عشان wuxuu ka hadlayaa what is a dress code marka dress code waxa weeye waa sharci sheegay dharka qofku xiranay marka waxa la leeyahay marka italis wuxuu u sheegayaa bay tiri what is a dress code waa maxay dress code waxa leedahay marka Sylvia italis wuxuu u sheegayaa the employees shaqaalaha whether they can wear waxay u xiran karaan to work shaqada marka waxa hadana mar labaad ku ceshatay waxa weeye Sylvia waxa leedahay will Teresa find maheli doontaa ama u raadin doontaa new workers shaqaale cusub for the hotelka marka will Teresa find new workers for the hotel shaqaale cusub miyay u raadin doontaa maxay Teresa hotelka marka yes she will hire waxay marka ay shaqaalaysiin doontaa new workers waa maxay shaqaale cusub marka who will train the new workers waxa Teresa soo booday waxa tiri who will train yaa tababari doona the new workers shaqaalaha cusub Sylvia waxay leedahay you will train them adaa tababaraya marka you will train them waa maxay adiga ayaa tababaraya marka Sylvia waxay leedahay why will Teresa do well at her new job why sababteeba will Teresa do well ay ugu wanaagsan tahay at her new job shaqadeeda marka shaqadeeda maxay ugu wanaagsan tahay sababtay ugu wanaagsan tahay maxay tahay because maxaa yeelay she's organized waa qof marka nidaamsan and likes jecel to help inay caawiso people dadka markan Sylvia is weydiinaysa su'aasha iyadana ka jawaabaysa maxay leedahay why will Teresa do well sababtay ugu wanaagsan tahay shaqadan shaqadeeda cusub Teresa waa maxay sababta aan leenahay ku wanaagsan tahay because maxaa yeelay she's organized waa qof nidaamsan and likes jecel to help inay marka caawiso people dadka
waxay ku nidaamsan tahay kabii way soo iibsatay dharkii way soo iibsatay wax walba shaqadu isku diyaarisay way ogtahay waxay leedahay qof kasta u tababarayso qof kasta ula hadlayso all of them marka waa organized qofkan shaqadani wuu ku habboon yahay marka lesson 1 waa cashirkii koowaad part 5 qaybtii shanaad Q&A questions and answers su'aalo iyo jawaabo marka haddaan kor marno why did I buy a new outfit maxaan soo iibsaday dhar cusub because maxaa yeelay you have a new job waxaad heshay shaqo cusub what is my new job waa maxay shaqadeeda cusub you're the new director of human resource for the Baker Resort Hotel marka waxaad tahay agaasimaha cusub ee shaqaalaha ee Baker Resort Hotel what is a dress code waa maxay dress code it tells wuxuu u sheegayaa the employees shaqaalaha what they can wear waxay u xiran karaan to work shaqada will Teresa find new workers for the hotel يعني Teresa ma u raadin doontaa shaqaale cusub hotelka yes ha she will hire waxay shaqaaleysiin doontaa new workers shaqaale cusub who will train the new workers shaqaale cusub yaa tababari doona you will train them adaa tababari doona why will Teresa do well at her new job يعني sababta ugu wanaagsan tahay shaqadan يعني Teresa waa maxay because maxaa yeelay she's organized waa qof markaa nidaamsan and like is jecel to help inay caawiso people dadka markaa waan salaamayaa xashka lagu ceesho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Why did I buy a new outfit? Because you have a new job. What is my new job? You're the new director of human resources for the Baker Resort Hotel. What is a dress code? It tells the employees what they can wear to work. Will Teresa find new workers for the hotel? Yes, she'll hire new workers. Who will train the new workers? You will train them. Why will Teresa do well at her new job? Because she's organized and likes to help people.